Stockholm iyo wadan kale taal dhahay oo wali lockdown lagu sameeyay jiro waa Sweden iyo Hawaii Japan laba wadan ee maartay ay qaatay mataqaana in shacabkoodii maartay karantiil lagu sameeyay oo guriga joogan صح Swedish waxay qaateen mataqaana in maartay ay fishigtiga ahaadaan ee maartay is ilaaliyaan inkastoo wixii kasta iskuuladii maartay intii jaamacadaha ay ka ahayn dugsiga sare ayaa la xiray laakiin dugsiga hoose dhexe iyo daagiskii uu furan yahay taas aan kugu celi jaamacadaha naftirkooda xamalena distance laga dhigay dadkaas waxa la ogyahay inay isdabari karaan wax ku baran karaan sababtaas maartay maadaama ay yihiin dad waaweyn oo jaamacadda ku jiro dugsiga sare labada waxa arkay primary-ga xataa maartay ciyaalka dugsiga hoose dhiganayo tusaale ahaan wiilaan aan u ahay abti oo kaleeto intuu guriga joogo waxa loogu soo diray computerka loogu soo diray dugsiga sare sida wadamada kale laakiin wax xirin wax dhan shutdown laga dhigay boss waxaana saaran Soomaaliya hadaan nahay wadankan faraan isku soo fiiqnay waxa la dadka ugu dhimashada badan Soomaalida waay wadankan anaga ku nool dadka dhahaayeen hadalkaas waa dadkii degan wadamo kale oo la soconin xaaladda ka dhacaysa Sweden anaga dhimashada ugu badno dadkaas waa dad been sheegay anaga horta marka hore waxa in laga hadlo cudurkan intuu noogu yimid exactly ina ka sheekaysan anaga Soomaaliya nahay maskiimiina nahay ma baxnee ma baxna ma dhoofno cudurkan intuu ku yimid cudurkan Swedishka noo keenay cudurkan dadkan Italy ku yimid Italy sport love dadkii ka yimid cudurkan noo keenay number aad u badan waay maskiimiina nahay waa rugby tennis ma ka baxnee cudurkan yaa noo keenay taada kale waxa hadda soo baxday in qowmiyadaha kale ee wadankan ku degan Soomaalida ahayn naftirkooda in cadad badan ka dhintay oo yaani waxa la yiri hadda Italy kale waxa dadka badan u dhinteen waxa la yiri waxa way familiyada waxa sala nool aabi hooyadii caruurtii waxa laga yaabaa xataa in awoogi ayida xataa marka familiyada sidoo kale carabta oo kale noocyada kala duwan sidaas kale ayagana waa isla nool yihiin ma aha dad sidii Swedish oo kale hadda anaga marka Stockholm nahay oo xaqiiqda aan firno waana laga dhimasho badan yahay Asiriska naga dhimasho badan Iiraaniska naga waxaan la yaabay meediyaha qof kasta wuxuu jecel yahay ceebta Soomaaliya inuu sheego inta Soomaaliya ceebteeda la qarin lahayd horta taas waa ku raacsanahay taas nin Swedish inuu ku yimaado ku dhihi maayo ceebtaada sheeg ama inuu meel tago Soomaalida sidaas ku dhihi maayo dhibaatada ugu badan waxa waaye annaga Soomaali markaan nahay waxaan haysanaa platformyo oo aan dhibaatadayno community aan isugu gudbi karno waxaan haysanaa wadooyin badan oo annaga aan isugu imaan karno wax isugu wacyigelin karno laakiin inta ma fiirinayno waxaan door bidnaa inaan informationadeena siino media waxaan dhageystay wareysi uu ninkan BBC-da siiyay runtii aad baan uga helay si fiican ayaa ugu sheegtay xaaladda meesha ka jirto adigoon waxba qarin wala dhacay runtii wareysi qurux badan baa adig iyo dadkii kale aad aniga yar taksiila Cabdirashiid iyo Xudayfi iyo gabadha uu meedegan ma aqaan aniga maartay BBC soo raadi aadaan Stockholm inuu wax ka wareysan waay ma dadkii dibadda joogay way sheegeen wuxuu u malay Stockholm in lagu baabaayo dhibka jiro ma taqaan oo yaraan boqol qofood naga dhimatay Soomaal hadii u badato 20 something waay markii horta wuxuu Ilaahay u qoray mala seegayo dadka ma taqaana si dhaqaatiirta dadka information inay siiyaan waa xaqay u leeyihiin waan ina qaadano waay fikrad fiican ay sameeyeen ma dhacay laakiin Facebook iyo dhaqtaryaashii apologies dhiibeen laakiin dhaqtaryaashii waxa iga daran kuwa aan dhaqtar ahayn oo shaqo ku leeyahay ameedii markasta la hadlaa markasta journal email oo Soomaaliya ceebteeda la sheegaa dhibku ugu weyn ma taqaana dhibku ugu weyn waxa waaye dhaqaatiirtina ayagana qaladkooda ha qaataano apologize kasta ayagoo bixiyo laakiin ha ogaadaan horta qaladkaas inuu yahay wax weyn ay geeyeen aad ilaa ay haddana daba taagan xaqiiqada fiican laakiin because qofka markuu dhaqtar yahay mas'uuliyad weyn saaran waxa laga yaabaa ayagana inay isla haayeen gargaar degdeg ummadiina yaani dadkiina keena ma faantay waxaan ka badbaadiyay waxa laga yaabaa wax khayr ay soo wadeen laakiin waxay ka dhashay waxay noqdeen wax yaraan badan takoor ku dhaco mid hadda laakiin muhiimadda waxa waaye ana baawur qaatay ringi bitenista meelaha Soomaali u banto ku soo wareeyay wax jooga ma leh Soomaalidii way is aruursay ummadaas Swedish ku waxay kala mid tahay
saani aaminsan hadirtan laakiin markii hore cudurkan maana ka seen sababtaasoo markii hore oo aad noo garaacay cudurkan ma ka seen hergab caadi u maleynay meel kasta joogna waxa isku nimaanaa masaajidadii maqaayadii cuntada lagu cunay wixii dhama isku nimaanaa qofkan hergab caadi hadduu hay normal u maleynaa laakiin cudurkan waa cudur ilaahay dadkii dham adduunka dham maartay oo ku halaagmay aad iyo aad midii aan ahayd dhaqaatiirta information horta ay dhiibayeen hab wanaagsan oo ahay information inay dhiibaan laakiin habke annagii dhexdeena ayaa hoos isku dhigay sababta oo ah media leenahay platformyaan leenahay Soomaalideena oo waddanka ku nool intaasoo kun ku xiran platformkaas oo intaasoo kun ku xiran jaanis aan ku adeegsana ma siinayno waa iskala weynaa oo waxaan raadinaynaa attention aanan jirin oo ummadaha kale laga raadinayo annaga isliidayna dhexdeena runta fiican waa inaan fiirino platformkan sababtiisa iyo waxtarkiisa oo aan tusnaa generationka soo socdo in ay ayagana adeegsan karaanoo communitygooda wax ay ugu sheegi karaan laakiin haddii aan aadno Katarina oo intan taagno oo information siiyo Erickson that doesn't make sense ma fahanti annaga meesha ku baadilan laakiin marka ilaahu naxariisto dadkii ilaa intii dhammaata Allah naxariisto hadda waxa maartay waxa muhiimad ah in wax la isku sheego oo wacyigelinta oo dhaqaatiirta waxayna fartay aan raacno oo Swedishkan si u nool yihiin ta la noolaano ma fahan the very important waa ilaahay intii caafimaad qabto ala intan waxa kaga faa'iideysana legendiga ku dhintay London Xudaydi Soomaali legend waa ninkii Soomaali معلمك معلمين ما ديه كلا الله ونحرس جندي الله جيه زكي صاحبكن بيس الله ونحرس الله بدنا نقدر يعني وجعلنا جعلنا لكن بلس لي كرا عذرادان عن عذر كان dadka Soomaalida u dhintay boqolkiiba boqol inay corona lama aniga ahaan waxa aaminsanahay cudurkan boqol inta badan inay corona u dhintay sababtoo cudurka hergab waaye cudurkan waa cudur smart aqli badan qofkii meeshii hergab markuu ku dhaca toos wuxuu aadaa meeshii aad maartay cudur ka qabtay ama kiliyaha ama sanbabada wax dham ilaahay ka koriyo cudur xun waaye hadda wiil saaxiibnaho oo dhalinyaro ku dhintay doolar dhaha Allah u naxariisto oo wiil dhalinyaro vel train oo hay wuxuu dignay Helsingborg wuxuu guuri London kala maanta dhintay doolar dhaha waa ka naxay wallahi billah ma dhawaanin aad isku jeclay waay marka ma la dhigi karo cudurkaaneeto maartay dad waayirka bas u dilaa ma la dhigi karo dadka xanuunsan ilaahay in maartay la baryo leeyo bas wax kale ma laha amiin muhiimadda horta waxa waaye ilaahay la tala saarto at the same time na maartay oo aan Soomaaliya hadana aan iska ilaalino waxyaabaha keeni kara maskaxiyan dad badan hadii isdilooyo oo u baahan in laga hadlo runta fiican waa arin kale waa iidan waxa jirta wax la yiraahdo isolation ko kale marka dadka ay lagu soo xir karantiin la sameeyo guriga lagu jiro Swedishkan aniga waxa aaminsanahay dawladda maartay kulay shacabka xukumo hadda guriga lagu xiro oo musoo bixi kartiin laha baxar ku jiraan dadka dhan waa dadka waxa loo baahan hadda kale in la helo dad wacyigelin oo nafsiyan yani dadka bartay hadda kale psychology oo kale oo dadka guriga qofku jiri karo waa adagtahay maxaa la sameeyaa buugaagta la akhristo seelisku madadaaliya yani qofku wuxuu baahan ma fahantii wax madow hadda qofku hortiistaan maxaa la end of tunnel inuu arko iftiin soo socda iyo maxaa la dhahaa ay wax fiican ka dambeeyaan in bacda usr yusran oo kale in waxaan dhibkan uu ka dambeyn doono maxaa la dhahaa wax wanaag marka uusan qofku uu noqonin qof isdiibo oo kale yani aad laakiin niyo horto niyo ta ugu dhibka badan haddii ay la aragteenbo waxa waaye Soomaalideenu positive maradina badan keeno ma fahanti hadda video waxaan arkay biri dhaweeto oo dad ku dhintay New York oo kale marka New York qof isbitaalka ka shaqeynayay ayaa soo duubay meedkii meeshii yaalo marka nin baa soo qaaday af English af Soomaali u turjumay wuxuu dhahay walaalayaal Ingiriiska waa lagu baaba'ay dadkaana u jeedin wax meedkan dhaqaale la yahay tabarruc xaluso isku soo baxo numberka meesha ku qoran yahay ma fahankidahay been noqotay imisaad daawanayso oo guriyaha ku jirto niyada ka jabaysa marka nin waxaas faafina nin xanuunsan waay ani ma aaminsan inuu caafimaad qabo nin meed oo duuba oo maartay oo dhaha dadkaana dhintay meesha Soomaaliya soo baxa waa nin xanuunsan waay adduunkan meedii dhan wuxuu noqday dad xanuunsan iska soo galaan marka Soomaaliya nahay
kula tali lahay dhanka positive-ka in aan ka fikirno intay xaaladan socoto oo aan niyadda isku dejinno intaan panic sii qaadi lahayn oo aan raadi lahayn news naga sii nixiyo in aan dhanka positive-ka aan ka fiirino oo aan waalidiintayno niyaddooda aan u deji karno aad ilaahay حالات علوس لو جرا حالات علوس لو جرا إلهي خير رجينا إن شاء الله ما يوا وأنا كفر حسنا إن نلا قابت وقت تانكيو فرمي هذيك ما تسمع هذيك تا فرح هذا عرفته لسكم من راجل إن شاء الله مركز سيس علينا